gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani laantiisa Holan Maxamed Yuusuf Hurre oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay ayaa hambalyo ku aadan sanad guuradii 11aad ee lagala soo noqday dalkii la isku oran jiray Soomaaliya hambalyo u diray shacabka Somaliland gudoomiye oo ku soo dhaweynaya marka hore ku soo dhawow bismillaah aad baad u mahadsan tahay wariye abaadir waxay maanta diyaaran tahay aan doonayaa ka hadlo maalintan ciidda ee Britoola hadii la ka dhigo ciid waxba kama dhacda weeyaan sanad guuradii 11aad oo ku soo wareegtay 1991 ama 1990 markii ay xorriyadeennii luntay dib uga soo laabanay wadankii la isku oran jiray Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhammaantood shacabka reer Somaliland guda iyo dibadda qurba joog ciidamada qaranka xisbiyada dawladda dhammaantood waxaan leeyahay caafimaad dabaaldega ku ciida ilaahay wax ka baryaya dadka sanadkiisa bash iyo barwaaqo ilaahay ugu gaarsiiyo iyo in ka badan oo kaleba diinay waxay tahay waa maalin qaran maxaafid iyo mucaaradba in meel loogu soo wada jeesto oo meel lagu wada xuso oo maxay gacmaha la isqabsado oo cadow badan baan leenahay cadowga isha ayaan uga faa'iideysan oo si wanaagsan loo wada xuso dadku ay si wanaagsan dabaaldegaan weeyaan waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaya ciidamada qaranka Somaliland hadday yihiin military hadday yihiin police hadday yihiin nabad sugid cid kasta oo aan u mahadnaqayaa iyaga shaqadooda waayo diinmay waxay ku suntan tahay kumanaan ayaa u dhagbeelay u indhabeelay u dhintay maalintan waa maalin qaali weeyaan waxaan leeyahay diinmay baa leeyahay caafimaad marka waxaan kaloo aad iyo aad u bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi shalay toona isugu yeedhay asxaabta qaranka oo qasriga madaxweynaha oo ay ku wada hadleen ay uga wada hadlaan arrimaha taagan hadda ee diinmeyda iyo doorashooyinkaba ay uga ballameen marka diinmey ay la dhaafto wixii doorashooyina ay wada hadal ku dhameeyaan kulanka uu madaxweynuhu cajabta u sameeyayna waan uga mahadcelinaya madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka isaga mid mucaarada iyo mid mucaaradaba madaxweynaha waxaanan leeyahay yaan laynaga faa'iideysan wixiina aynu hoos gamaangeertiro waxaynu hoos loo dhaqaaye aynu hoos u dhamaysano cadowgiina maqlin intaa waxay raacda waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland maalintan beriya ee maalin qaran weeyaan ciidinka ay malaha waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland nabad ha ku badbaaldegaan nabadana ha ilaaliyaan meelaha lagu soo jeesto waa maalin qaran weeyaan gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland idinkoo isku duuban oo haysta waan kala saareen ciidamada amnigana la shaqeeya aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye waqtigaaga muhiimka ah ee aad nala wadaagtay iyo farxadda sanad guurada 11aad ee qarannimada Somaliland kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka wadani laantiisa Holan Maxamed Yuusuf Hurre oo waraysi gaar ah siinayay waa Maxamuud Abaadir.